السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دلهانتي بداود الكسود وذا قضبض يدا هبين كان عاوا وقدور كرون ودي كايمان هي حرمتا كواد تلفزيون كمدا حبنان برشة تي في كل هاي مقالة هرقيسان داود يا القضبض يدا هبين كان عاوا نديها إننا وحوا وين ciidamada dalka Kenya oo kaashanaya ciidamada dalka Soomaaliya ayaa waxay sheegeen inay gudaha u galeen magaalada Kadeeda Kismaayo ee dalkaasi Soomaaliya. dawladda dalka Nigeria ayaa hakisay duulimaadyadii dhinaca xajka kadib markii dawladda Sacuudigu ay soo celisay 170 ruux oo haween ah kuwaas oo aan wadan maxrumkoodii. daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta mudanawiintaasi waa qaar ka mid ah habeenkan caawa qodobadayada ugu doorka roon imikii haatana warkayagii oo dhammaystiran. xaflad ballaaran oo lagu qabtay hoolka jaamacadda magaalada Burco. xafladaasi oo ay soo qabanqaabiyeen maamulka iyo macallimiinta maxadka Nuuruddin Institute Language ku yaala magaalada. xafladaasi oo shahaadooyin lagu guddoonsiinayay arday tiradoodu gaadhayso 283 arday oo isugu jira wiilal iyo hablo. ardaydaasi oo ka qalin jabiyay maadooyinka kala ah caafimaadka, Ingiriisiga, saxaafadda, kaambayo iyo waliba Carabi. sidoo kale xafladaasi waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin isaguna waxaa ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada gudoomiye ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada ee gobolka Togdheer oo isaguna sidoo kale ku ammaanay tirada badan ee soo qalin jabiyay maadooyinka kale. dambeyntiina waxaa halkaasi hadal ka soo jeediyay maamulaha maxadka Nuuruddin Cabdiladiif Sheekh oo ku dheeraaday taariikhda uu leeyahay maxadka Nuuruddin. maaha markii ugu horeysay xaflad noocan oo kala shahaadooyin lagu guddoonsiyo arday ka qalin jabisay maxadka Nuuruddin ee ku yaala magaalada Burco. aadan cabdisalaan bulsha TV magaalada Burco. ciidamada dalka Kenya oo kaashanaya ciidamada dalka Soomaaliya ayaa sheegay inay gudaha u galeen magaalada Kadeeda koonfureed ee Kismaayo ee dalkaasi Soomaaliya. sida warbixinta warkaasi uu noogu eegay Cali Mahdi Jibriil Xasan. ciidamada nabad ilaalinta ee dalka Kenya iyo kuwa Soomaalida ayaa maanta oo Jimcaha galinkii hore sheegay inay guud ahaan gacanta ku dhigeen magaalada Kadeeda koonfureed ee Kismaayo oo ah dhifayskii kaliya ah ee ay ku sugnaayeen kooxda Al-Shabaab ee ka dagaalanta gudaha dalka Soomaaliya. dhinaca kale afayeen u hadlay kooxda Al-Shabaab ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay sheegashadaasi. haddaba hadalkani ka soo yeedhay dawladda Kenya ayaa ku soo aadaya xilli ciidamada Kenya ay wax yar 4 kiiloomitir u jireen magaaladaasi iyadoo la sheegay inay deegaano tiro badan ay gudaha u galeen deegaano kale oo ka tirsan gobolka Kismaayona ay gacanta ku dhigeen. ugu yaraan 19 ruux oo dalxiisayaal ah ayaa ku dhintay shil diyaaradeed oo ka dhacay caasimadda dalka Nepal. sida warbixinta warkaasi inoogu eegay Maxamed Cali Warsame. yaraan 19 qof ayaa ku dhintay shil diyaaradeed oo maanta ka dhacay caasimadda Kathmandu ee dalka Nepal, kuwaas oo iskugu jiray 7 qof oo British ah iyo 5 muwaadiniin u dhashay dalka Shiinaha. diyaaradan ayaa isla markay ka haaday madaarka Kathmandu dhacday iyadoo dul hayaabaysa buraleyda Mount Everest ee magaalada Lukla ee dalkaasi. diyaaradan oo ahayd nooca yaryar laguna magacaabi jiray Sita Air Doimer. dadka diyaaradda saarnaa oo la sheegay inay u badnaayeen dad dalxiisayaal ah. shilka diyaaradan oo la sheegay uu sababay mar uu duuliyihii diyaaradaasi hagayay isku dayay inuu si dhaqso ah u fadhiisiyo diyaaradda, balse nasiib xumo isla markiiba dab ayaa qabsaday goobtana diyaaradii ayaa ku burburtay. dawladda dalka Nigeria ayaa joojisay duulimaadyadii dhinaca xajka ah kadib markii dawladda Sacuudigu ay soo celisay 170 ruux oo haween ah kuwaasi oo aan wadan maxrumkoodii. Nigeria ayaa hakisay dhammaan duulimaadyadii ay xujayadu ku tageysay dalka Sacuudiga markii ay xukuumadda rayidka ah ay mustaafurisay in ka badan 170 haween ah ee halkaasi tagay iyagoo aan la socon rag ehel ah. afayeenka baarlamaanka Nigeria ayaa waxa uu horkici doonaa wafdi tagi doonta Sacuudi Carabiya si ay ugu cawdaan qaabka loola dhaqmo xujayada. mid ka mid ah haweenkaasi reer Nigeria ayaa BBC-da u sheegtay in aan la siin wax cunto ah intii ay xidhnaayeen, isla markaana iyaga oo boqolaal ah ay ku qasbeen inay wada isticmaalaan hal musqul. Sacuudiga waxa uu muddo ay walaac ka muujinayay dadka ka yimid qaaradda Afrika dalkeeda ku hadha marka ay dhameystaan cibaadada xajka, kuwaas oo mararka kadib bilaaba in ay tuugsadaan amaba ay ku lug yeeshaan falan anshax xumo ah. ra'iisul wasaaraha dalka Israa'iil ayaa ugu baaqay beesha caalamka in haddii aan la joojin nukliyeerka Iiraan ay ku hawlan tahay in ay soo saari doonto sanadkan Iiraan nukliyeerka oo dhammaystiran. sida warbixinta warkaasi ay noogu eegayso wariyahayaga Casiise Cabdilaahi.
Ra'iisul Wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu ayaa ka digay in Iran haddii aan la joojin ay yeelan doonto in ku filan macdanta in ay u horeeyay ee nuclear-ka waqti ka mid ah sanadka soo socda. Isagoo khudbada ka jeediyay xarunta qaramada midoobay ee New York ayaa Mr. Netanyahu waxa uu sheegay in qadcas ay waajib tahay in loo dhigo rabitaanka nuclear-ka ee Iran. Sheegay in uu ku kalsoon yahay in Mareykanka iyo Israel ay sameyn karaan dad guduudan oo laga hortagayo Iran in ay yeelato hub nuclear balse aad looga daahay in sidaas la yeelo. Ayaa sheegtay in ay ku argudan doonto waxa ay ugu yeertay awoodda buuxda weerar kasta oo lagu soo qaado kadib markii ra'iisul wasaaraha Benjamin Netanyahu uu ku baaqay in qadcas la sameeyo si looga hor istaago xukuumadda Tehran in ay hesho hub nuclear. ku-xigeenka safiirka UN u jooga Iran Saak al-Habibi ayaa sheegay in Mr. Netanyahu uu soo jeediyay eedo aan sal lahayn isagoo sheegay in dalkiisa uu awood ku filan u leeyahay uu isku difaaco. warkii oo daawadayaal kala socoteen telefishinka madaxa bannaan ee Bulsha TV xaruntiisa magaalada Hargeysa warka xiga intaynu ku kulmana dhamaanba aniga iyo akhyaartii kale ay kala qayb qaadatayba waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum.